diley hubaysanaya cawa magaalada baydhaba ku dishay Allah u naxariistay Shariif Mukhtaar oo si weyn loogu yaqaanay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka Baay. Dileyda ayaa marxuumka curyaan ahaa waxa ay ku dhex dileen hoyga uu ka degan yahay eelboorka u dhow garoonka diyaaradaha shaati guduud ee magaalada baydhaba. Aadan ciilow oo ka mid ahaa dadkii garanayay marxuumka ayaa sheegay in dileyda ay si xun ay u dileen kadib markii gudaha ay u galeen hoyga uu ka deganaa baydhaba. waxayna ahayd dhacdo xanuun badan runtii. nin curyaan ah oo miskiin ah ayaa la dilay. curyaan marka aan ku leeyahay waxaan ula jeedaa laguma lahayn. niman qoryo wato ayaa gurigiisa ugu galay waxayna u dileen si naxariis darro ah. markii ay dileenna goobta way ka baxsadeen sida uu yiri Aadan ciilow. waxaa kaloo intaa uu ku daray annaga ma sheegi karno waxa loo dilay oo aan ka ahayn inuu ahaa gudoomiyaha kaamka albaraka oo ku yaala airboorka baydhaba geeskiisa. dhanka kale Shariif Mukhtaar ayaa ahaa gudoomiyaha ururka naafada ee magaalada baydhaba. mana jirto ilaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda dilkiisa. saraakiisha ciidamada iyo maamulka gobolka ayaan ka hadlin dilka caawa ka dhacay magaalada baydhaba. waxaasi uu ku soo aadayaa xilli lagu mashquulsan yahay dabaaldega munaasabada 1 Luulyo oo ku beegneed saqda dhexe ee caawa. Maxamed Iqsiir Jito, RTN TV, baydhaba.